dowladda Kenya ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh waxa ay ka wadaa xuduudka degmada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ay la wadaagto degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado. Kenya ayaa jimcihii waxa ay isbedel ku sameysay ciidamadii booliiska ee xuduudka ilaalin jirtay iyadoona ku bedeshay kuwo militari ah oo aad u qalabaysan. Ciidamada ayaa la sheegay in ay wataan gaadiid gaashaaman ee dagaalka madaafiicda goobta iyo sidoo kale qoriga ridada dheer ee Altratiga siday noo sheegeen in lagu kalsoonaan karo halka loo yaqaan saddex geesoodka ee saddexda dal ee Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya kulmisa ayayna Kenya soo dhoobtay 1500 oo askari kuwa oo sida la sheegay u badan askar militari ah oo ka soo jeeda gobolka Soomaalida ee Kenya ee degto ee NFD sidoo kale Malaysia taabacsan maamulka Jubbaland oo laga kala keenay deegaanada Buurgaabo, Kudaa iyo waliba Ras Kamboni ayaa xalay soo gaaray xadka iyagoo markaasi taabacsan Kenya. maleeshiyaad badan waxaa horkacaya sarkaal magaciisa lagu soo koobay Fanax si dhowna loola xiriirinayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe. ciidanka uu hogaamiyo gudoomiyihii hore gobolka Gado oo ka soo ruqaansaday dhanka degmada Celwaaq ee gobolka Gado ayaa sidoo kale soo gaaray xuduudka iyagoona ku sugan qaybta Kenya. dhanka Soomaaliya waxaa xuduudka degmada Beled Xaawo ku sugan ciidamada Kumaandooska Gorgor iyo booliiska sida gaarka u tababaran ee Haramcad kuwa oo tiradooda lagu sheegay 2000 oo askari. dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay dhaqdhaqaaqyadan ciidan oo ay dowladda Kenya ay ka wado xadka ay la wadaagto Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya qoraal ay soo saartay ayaa waxa ay sheegtay inay si dhow ula socoto abaabulka militari ee dowladda Kenya maalmahan ay ka wado aaga Mandheere iyadoo hubeysan jabhad ay si sharci darro ah dalkeeda ugu martigelisay si xasuulin darro looga abuuro gudaha Soomaaliya. waxaa sidoo kale qoraalka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya lagu sheegay waxaan ogaanay in ciidanka Kenya ay hub iyo maleeshiyaadba ku soo daadgureysay magaalada Mandheere si duulaan loogu soo qaado magaalada Beled Xaawo iyo saldhigyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee aagaas ku yaala. dowladda federaalka Soomaaliya waxay uga digaysaa dowladda Kenya ficilada guracan ee ay ku wiiqayso nabadgelyada guud ee gobolka Geeska Afrika. waxay mar kale ku celinaysaa inay Kenya ka fiirsato faragelinta qaawan ee ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya oo ay ka dhalan karto xasilooni darro saameyn ku yeelata amniga gobolka. dowladda federaalka Soomaaliya waxay qaadaysaa talaabo kasta oo ay ku xaqiijinayso madax banaanideeda siyaasadeed, wadajirkeeda dhuleed iyo waliba ilaalinta sharafka iyo karaamada shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya. dhaqdhaqaaqyadan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli maalmihii la soo dhaafay xiisada ku soo korortay xuduudka labada dal iyadoo ay dadka deegaankuna ka baqdin qabaan in lagu dul dagaalamo. tani ayaa waxay imaanaysaa iyadoo maalnimadii Isniintii ay Soomaaliya xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dowladda Kenya kadib markii ay ku eedeysay in faragelin qaawan ay ku hayso dalkeeda. Cabdifataax Muumin 5TV Muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking. kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank.